maalin wanaagsan kulanka ka socda Ethiopia gaar ahaan Jigjiga ee isugu yimaadeen Xasan Sheekh iyo Ismaaciil iyo Ethiopia idbalsi bay u macnaysay fariinta koobaad baa ugu mucjiso badan waa dhul Soomaaliyeed oo ay marti ku yihiin madax Soomaaliyeed oo ay marti u yihiin xabashi aan af Soomaali ku hadal aan waxba ka fahmin waliba hortooda wuxuu ku leeyahay dhulkan Jigjiga lama kala laha Oromaa degan xabashi baa degan Soomaali baa degan ciidamo kala laha balse dhulka kale Ethiopia sida Oromiya Oromaa iskale Tigreega baa iskale waxa taa ka sii daran Xasan Sheekh wixii masaajid Muqdisho ku yaal intuu mikrofon la dhex istaagay ayaa wuxuu ka dhaxlay ma taqaan Xasan baa la yiraahdaa dhul Soomaaliyeed cid qaadan kartaa haba yaraatay ma jirto ka dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda ma ugu raali kamid aniga Xasan Sheekh Maxamuud la yiraahdo taariikh alle waa la yaqaan dhul Soomaaliyeed kama gorgortamo xukun kuma doorto wax kuma doorso waxa ku doorsanay ma jiraan markuu Abiy Ahmed ag joogana sidoo kale Somaliland oo dadkiisi al-shabaabtu ay soo qixisay ku nool yihiin qas dhibaato iyo mushkilad bu ku dhax wadaa Boorama ayaa wuxuu ku leeyahay waxaan magacaabayaa Awdal State Selba waxaan magacaabayaa maxay Hiiraan State